أولاً waxaynu dib u milcisan doonaa bal mowduucyadii iyo qodobadii shalay aynu isla ablaablaynay isla meel dhignay ee ka hadlayay guud ahaan bal tiirarka iyo barnaamijka dawladda maanta waxaad halkan ku arki doontaan mowduucyada sida ajandaha ku qoran aad u baaxad weyn oo run ahaantii la soo ururiyay siyaabo guudna isugu xirxiran gaarna u kala duwan waxaan halkaa ka arkaa khabiirkii weynaa mudane jawaari oo mowduuca u horeeya marka ay howlwadeennada xafiisku tiirarka inoo sharaxaan ka hadli doonaa siyaasadda Soomaaliya heshiisa dunida heshiis la khaasatan arrimaha dastuurka iyo la halmaala dimuqraadiyiinta iyo dawladnimada udubdhaxaadka u ah waxaynu eegi doonaa iyana bal Soomaaliya heshiisa iyo dhab heshiisiin sidii aynu u lafaguri lahayn arrimaha amniga ayaynu ka hadli doonaa waad ogtihiin ahmiyadda ay u leedahay dawladnimada khaasatan xukuumaddan hadda jirta madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo dhammaanteedba cadaaladda iyo garsoorka oo ay khubaradoodii inala joogaan iyo waxaynu ka hadli doonaa horumarinta dhaqaalaha oo iyana barnaamijkii deyn cafinta kobcinta dhaqaalaha kordhinta dakhliga oo dawladnimo kama warrami kartid ama kama hadli kartid mar haddii aan dhaqaale haysan dawladnimaduna waa in laga soo ururiyo cashuur inta wax haysata oo loo bedelo siyaasad iyo barnaamijyo u adeegaya intaan wax haysan waa inahaasun dawladnimadu marka taasna bangigii dhexe iyo wasaaraddii iyo khubradii arrimahan ku takhasusana weynala joogaan arrimaha bulshada oo ay mowduucyo aad u xasaasi ah Soomaaliya maanta xasaasi u ay ku jiraan shaqo la'aanta baahday ee ku habsatay daayirteeni populationka Soomaalida haddii aad eegto boqolkiiba badh ka badan ama 60 dhalinyaro lagu tilmaamaa aadka kala duwan shaqo la'aantooduna boqolkiiba 60 way gaadhaa marka waa su'aalaha waaweyn la rabo inaynu ka jawaabno waana arrimo si wada ogola ama wada jira la rabo inay wasaaradaha ugu wada shaqeeyaan dabcan mowduucyada ugu dambeeyana ka hadli doono waxaa ka mid ah isbeddelka cimilada iyo ilaalinta deegaanka oo aasaas u ah wax walba oo hadda caalamka uu ka shaqeynay marka horumar laga hadlayo khubro oo Dr. Ali ka mid yahay oo arrimahan Ali Daawud arrimahan ugu faradhuban baa inaga hadli doona laakiin waxaan rabnaa bal inaan isku xidhxidhno shaqada inoo taala heerarka kala duwan ee la rabo in la xiriirsiyo shalay waxa la yiri barnaamij siyaasi ah buu madaxweynuhu doorasho ku galay ama manifesto ayuu lahaa uu dadka u soo bandhigay doorasho ku galay qodobo oo xusay oo Soomaaliya ku dooratay ay jirtay ka bacdi ra'iisul wasaarihi uu magacaabeena wuxuu u bedelay barnaamij xukuumaddu geey Professor Qalooc shalay wuxuu inoo sheegay dawladda inaanay tallaabo qaadi karin ilaa ay samaysato qorshe qaran oo ay hawleedu ku fulinayso xilliga horena waynu lahayn xilliyadan dambana ilaa tii 8aad iyo tii 9aad dib baa loo soo yeegleeray qorshaha qaranka ayaa waxa la rabaa golahan wasiiradu inuu siyaasado iyo istiraatiijiyado u bedelo kuwaas oo lagaga shaqeyn doono dhowr heer oo kala duwan mar sector policies weeye ama line ministry baa ka shaqeynaysa bilmasalan wasaaradda waxbarashada oo kale laakiin wasaaradda waxbarashadu si ay waajibaadkeeda u gurato waxay u baahan tahay inay wada shaqeyn dhow la yeelato wasaaradda shaqada oo qofkii shaqada raadinaya qofkii wax baranayay in la iswaafajiyo oo labadoodaasi intay soo qiimeeyaan baahida waxbarasho ka jirta suuqa shaqada ay u gudbiyaan wasaaradda qorsheynta oo wasaaradda qorsheyntu ay tiraahdo sanadka soo socda inta soo aag iyadoo la tashanaysa wasaaradaha wax soo saar kale kalluumaysiga beeraha ay tiraahdo inta soo shaqo ay halka ka dhalan doona marka hal shaqo sida loo abuuro 10 wasaaradood bay isugu tagayaan mas'ala hadaynu soo qaadano hawlaha halkan aynu u fadhinaa waa inaynu faham ka qaadano oo dawladdu inay tahay mashiin si wada jira u shaqeynaya waxaan rabnaa marka barnaamijkii dawladda qorshihii qaranka siyaasadihii kabinetkan uu meel marinayay iyo shuruucdii iyo shaqooyinka wasaaradaha ka socda inay dhammaantood si habsami leh u wada socdaan
shalayna wax badan baa inooga baxay maantana waxaynu ku rajooweynaa inta inoo dhiman inaynu dhammaystirano si howlaha qarankani uu sugayo iyo dadkiisu aynu u fulino habka ugu habboon ee sharciga waafaqsan u fulino aad baad u mahadsantihiin inahaasaan kusoo koobaya halkaasaynu kasii wadeen